Assalaamu calaykum. Sidee ayaa loo qaybaa imtixaanka nooc kasta oo uu yahay? Haddii mid kasta oo inaga mid ah la dhaho imtixaan baad gelaysaa berri ee diyaari, waxa shaki la'aan ah in mid kastaba uu marayo hab iyo hanaan isaga u gaar ah, kaas oo uu aaminsan yahay in uu yahay kii uu ku gaari lahaa darajo fiican. Taasi waxa ay keentay in arday fara badan ay isu qaban weydo dadaalkii badnaa ee ay bixiyeen iyo buundada ay imtixaanka ka keeneen, sababtoo oo ah waxa ay mareen waddo aan ahayn habkii ugu fiicnaa ee imtixaan loo qaybo. Muuqaalkanse waxa aan kugula wadaagi doonaa habab la tijaabiyey oo ay khubaro waaweyn ku taliyaan. Hababkaas oo ku damaanad qaadaya haddii aad raacdo in aad buundo sare ka keento imtixaanka insha Allah. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe dheh, gambaleelkana taabo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeenu. Muuqaalkana la wadaag asxaabtaada aad og tahay in ay imtixaan ku jiraan amaba ay ku mashquulsan yihiin hayaanka waxbarasho, si ay adigana ajar kuugu noqoto iyaguna ay uga faa'iidaan. Waxa aynu u kala qaybin doonaa 3 qaybood: imtixaanka ka hor, imtixaanka dhexdiisa, iyo imtixaanka kadib. Aynu bilowno imtixaanka ka hor. 1. Imtixaanka wixii fahan u baahan ee aan ahayn wax la xifdiyo oo la qaybayo, la qayb saaxiibada, waayo wax aanad fahmin ayaa laga yaabaa in ay iyagu hayaan oo ay fahmeen, waayo dadku isku fahan iyo isku garasho ma aha. Marka waxa lagu taliyaa tirada ardayda meel wax ku wada qaybasa in aanay ka badan 3 arday, waayo waa ay wada sheekaysanayaan. Sidoo kale in aanay 3 ka yaraan, waayo 2 qof waxa ay isu kordhinayaan ayaa iska yar. 2. Xogta aad qaybaso isku day in aad soo koobto oo 2 xaashood oo kasta waxa ku yaala mucdooda iyo halka ay u dhimanayso ku qor cadaanka waraaq ka mid ah 2 waraaqood amaba mid gaar ah oo maran. Taasi waxa ay ka caawinaysaa maadadii aad akhriyi lahayd 2 jeer haddii aad buugga ama kitaabka ka akhriyayso in aad akhrido 5 ama 6 jeer, waayo waxaad ka akhriyaysaa soo koobidii aad samaysay ee ma akhriyaysid xogtan sharaxan ee badan ee buugta ama kutubta ku taala. 3. Gudo waajibaadka. Waxaa laga yaabaa adigoo imtixaanka si fiican u soo qaybay in Ilaahay ku hilmaansiiyo wixii aad soo qaybtay, taasina ay tahay waajib aad ka gaabisay ciqaabtiisa, kuwaas oo ay ugu daran yihiin salaada iyo waalidka. La hadal waalidka kolba cidda nool ee kuugu dhow, kana dalbo in uu kuu soo duceeyo. Haddii waalidkii ama mid ka mid ah uu dhintayna u ducee. 4. Isku day adiga iyo saaxiibada in maado kasta oo aad qaybtaan aad su'aalo iska weydiisaan. Ceebna ma aha in aad dhowr su'aalood jawaabtooda ku gafto saaxiibada dhexdooda, waayo aqoon baad kororsanaysaa, qofna aqoonta kuma dhalan. Haddii kalena adigu samayso weydiimo ku gaar ah. 5. Wax ku akhri meel degan, iftiinkeedu caadi yahay iyo xaaladaada oo caadi ah, oo waxa akhriin adiga oo gaajoonaya, cadhaysan amaba diiqadaysan. Waxaana lagu taliyaa xilliga aad wax qaybaso in cunto fudud ku agtaalo sida buskut ama keeg. Biyuhuna aad bay u faa'iido badan yihiin ee aynu badsano. 6. Marka aad soo baxayso ee aad soo qabanayso goobtii imtixaanka, soo tuka 2 ragco oo salaatu xaaje ah, ujeedkeeduna uu yahay in Ilaahay imtixaankan iyo ka aakhiraba kuu fududeeyo. 7. Isku day in aad muraajacada iyo akhrinta imtixaanka joojiso ugu yaraan saacad barkeed ka hor xilliga uu imtixaan ku bilaabmayo, waayo maskaxdu waxa ay ka naxsan tahay imtixaankii, mana gelayaan waxa aad hadda akhriyaysaa ee waxa ay ka kala daadinayaan wixii aad hore u soo qaybtay ee soo akhriday. Imtixaanka dhexdiisa. Haddii aynu u gudubno qodobada ay tahay in aynu raacno marka aynu imtixaanka bilowno. 1. Qor magacaaga. 2. Dheh bismillaah, ducadana akhri. Allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahlan wa anta tajcalu al-huzna idha shi'ta sahla. oo uu macnaheedu yahay Ilaahayow ma jiro wax fudud waxa adigu aad ka dhigto mid fudud ma ahane. Adiga
ayaana shayga murugada ah iyo wixii adag ka dhiga wax sahal ah oo fudud haddii aad doonto. 3. akhri imtixaanka dhammaantii adiga oo aan ka shaqaynin hal su'aal si aad horta u hubsato imtixaanka xagaa fudud, xagaa jiricsan, xagaasi adag. 4. ku bilow ka jawaabidda weydiimaha fudfudud si haddii aad kuwa adag ugu bilowdo aanu xilligu kaa dhicin. 5. boqolkiiba 95 jawaabta ugu horreysa ee maskaxdaada ku soo dhacda marka aad weydiin kasta ka shaqaynayso ayaa ah tan saxa ah ee qor. 6. ku noqo weydiimihii adkaa ee aad ka tagtay oo ka jawaab. 7. akhri oo isha mari dhammaan imtixaanka adiga oo eegaya laba wax: in ay jiraan weydiimo aanad ka jawaabin iyo in ay jiraan weydiimo aad ka jawaabtay aadse jawaabta ku qortay meel aan ahayn meesheedii. 8. ha isku dayin marna in aad qishto. haddii aad qish ku baasto waxa aad shaqaysaa waa wada xaaraam oo $1 oo xalaal ka ahi ma jiro. rasuulkuna waxa uu yidhi calayhi salaatu wassalaam, jidh kasta oo xaaraam ku koray naar baa u xaq leh. midda kale, haddii uu ardayga aad ka qishaysaa yahay kii galaaskiina ugu xariifsanaa bil aanu maadada aad ka qishayso sooba akhriin hawl ku timi daraaddeed. bilow isaga oo soo akhriyay ay jawaabtii saxa ahayd garab martay. imtixaanka kadib, 1. cid ka mid ah asxaabtaada ha weydiin waxa ay imtixaanka kaga shaqeeyeen, waayo waxa ay kuu sheegayaan waxa ay iyagu ku qoreen, iyaga ayaanay sidaa la tahay oo dee iyagu ma aha kitaabkii. haddii mid ka mid ah uu dhaho sax iyo qalad ka tashanaad sax bay ahayd, waxaad odhanaysaa adiga ayay kuu tahay ee aniga waa ii khalad. haddii aad weydiiso saaxiibada waxa soo bixi doona wax badan oo aad khaladay amaba si aad saxday aadse khalad moodo markii aad dhegaysatay waxa ay ku leeyihiin. taasina waxa ay kaa carqaladaynaysaa qaybidda imtixaanka berri, waayo waxa aad marba soo xasuusanaysaa khaladkii shalay ama maanta ee aad gashay oo waxba ma qaybaysid. 2. marka aad maado imtixaankeed ka baxdo isla markiiba ha bilaabin qaybidda tii ku xigtay ee nafta sii xilli yar oo nasasho ah sida 1 saac amaba ugu badnaan 2 saac. 3. haddii ay soo baxdo kumaba talinaya in aad ogaatay wax aad khaladay waxba ha isku mashquulinin ee ka fuudiyeel imtixaankaaga dambe iyo qaybidiisa. fiiro gaar ah. ugu dambayn, kani waa imtixaan adduun ee walaal aynu ku dadaalno imtixaanka aakhiro innaga oo samaynana gebi ahaanba wixii uu Ilaahay ina faray kana dheeraanana in aanu ku surma seegtoono oo ku dhacno gafafka iyo waxa uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo diiday. magacaygu waa Sakariya Haaruni, halkanina waa Haaruni Media. inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.